الحانا قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتأمرني بأمانة وتأمرني بأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي معنا wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena diinta iyo nolosha oo toddobaadkan martii noogu yahay fadiilatu Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre Sheekh Ismaaciil Deeg oo kamid ah culimada waaweyn ee dalka. barnaamijkeena maanta waxa ku saabsanaan doonaa dhaqdhaqaaqa xuquuq raadinta dumarka taariikhan halka ay soo martay iyo miisaanka shariicada islaamka. Sheekh Ismaaciil kusoo dhawaada barnaamijkeena. aad iyo aad wada hadsantay. ugu horeyn hadaynu bilowno barnaamijkeena taariikh ahaan bilowgii dhaqdhaqaaqa xoreynta dumarku halkii uu ka bilaabmay. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu baaraka calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd. ereygan baadigoobka xuquuqda dumarku nolosha aynu maanta ku nool nahay waa erey warbaahintu ay aada u soo celceliso sida wardiga la soo celceliyo. ereygaasi weeyi waxaynu odhan karnaa ihtimaam weyn ayaa maanta caalamka ka jira doonitaanka iyo raadinta iyo dabagalka xuquuqda dumarka. waxaynu odhan karnaa inta aynaan sida ay u bilaabatay kelmad ka odhan waxaynu arkaynaa in maanta kutub laga qoray, shirar caalamiya loo qabtay, qaar goboleed loo qabtay. waxaa markaa isweydiin leh sideebay dhaqdhaqaaqaas xuquuq raadinta dumarku ay u bilaabantay. haddaynu markaa jawaabta kusoo dhowaano dabcan dee nolosha bini-aadmigu taariikh dheer bay soo martay, laakiin haddaynu soo gudubno aynu nimaadno qarnigii 19aad waxaynu odhan karnaa waa xilligii ay bilaabmeen dhaqdhaqaaqyadan xuquuq raadinta dhinaca dumarku, gaar ahaan kadib markii qaaradda Yurub iyo caalamka meelo kale ay ka bilaabantay waxaa loo yaqaano kacaankii sancada al-inqilaab as-sanaaci amba industrial revolution. xilligii kacaankii sancadu uu yimid dabcan dumar fara badan oo miyiga iyo tuulooyinka deganaan jiray ayaa waxay ku soo shubmeen magaalooyinkii waaweynaa ee ay ka jireen warshadaha, gaar ahaan kuwii ugu horeeyey ee dharka ka shaqayn jiray. waayo sida taariikhda aynu ognahay warshadihii ugu horeeyay waxay ahaayeen kuwa dhinaca dharka. marka markii ugu horeysay buu dareen soo baxay dumarkii shaqaalaha ka noqday warshadihii cusbaa, dareen ku wajahan laba dhinac ah in mushaharada dumarku ay qaataan la gaadhsiiyo oo lala simo tahay ragga ay qaataan, isla dhinaca kale muxuu ahaa la xadido saacadaha ay dumarku shaqaynayaan. marka qarnigaas 19aad ayaynu odhan karnaa waxaa bilaabmay dhaqdhaqaaqyo raadinaya xuquuq oo Yurub iyo Maraykan ka bilaabmay. markii dambana caalamka oo dhan buu gaadhay ilaa uu soo gaadhay caalamka islaamka oo qarnigii 20aad bilowgiisii waxaa Masar ka bilaabmay dhaqdhaqaaq dumar xuquuq raadisa oo gaar ahaan dumar waxbartay oo Yurub oo Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo meelo kale ka yimid. dumar baa yimid runtii xuquuqda raadinaya oo xuquuqda la yaab kale xilliga dumarkii Masar joogay ay raadinayeen ay ka mid ahayd tusaale ahaan in xijaabka ay iska dhigaan, waayo Yurub bay ku soo artay midaan xijaabnay oo ay ka doodaan muxuu ahaa labaynta dumarka lala labaynayo ay ka doodaan oo ay ka doodaan in muxuu ahaa lala yimaado waxyaalo fara badan oo aad isleedahay mararka qaarkood dee aasaasiyaadkii islaamka ayay taabanayaan. markaynu soo gunaanadno qadiyadaasi qarnigii 19aad bay xawligeedu soo bilaabmay, waxaanu soo xoogeystay raadinta xuquuqdu
qarnigii 20aad bilowgiisii gaar ahaan dagaalkii adduunka ee koowaad markii uu dhacay ee warshadihiina soo kordheen rag fara badan ay ku leedeen dagaaladaasi ayay soo bilaameen Yurubay ka soo bilaamatay caalamka carabta iyo islaamka soo gaadhay Yurubtii bari iyo Ruushka ayay gaadhay ilaa ugu dambeyntii ay timid mawjad xuquuq raadona oo caalamka aad iyo aad ugu baahday waan gartay aad baad mahadsantahay Sheekh Ismaaciil doorka gabadha muslimada ah iyo dib aynu u dhigan doonaa barnaamijyadeena dambe iyo sifaadka laga doonayo gabadha muslimka ah laakiin doorka ay ku leedahay qaramada midoobay wax kasta waxa xagga dambe ka riixa kulli qorshe ama ururo marka qaramada midoobay door intee leeg ay ku leedahay in ciyaarsiiso dumarka xuquuqda insaanka xuquuqda dumarka doonaya ee raadinaya waxaan isleeyahay kaalinta ugu muhiimsan xuquuqda dumarka gaar ahaan iyo xuquuqda bini'aadmiga guud ahaan waxa hagaaya oo remote control ku ifinaya ama jimciyada qurumaha ka dhaxaysa ama dad jimciyada qurumaha ka dhaxaysa magaceeda ku faa'iideysanaya ayaa ka bilaabmay marka waxaan jecelahay in aan iftiimino dhaqdhaqaaqaasi wuxuu aad iyo aad u xoogeystay markii 1945 la aasaasay jimciyada qurumaha ka dhaxaysa waxa nasiib darro ahayd dhaqdhaqaaqa xuquuq raadinta ee xuquuq doonka dhinaca dumarka ah ee Yurub ka bilaabmay markii u horeysay waxyaalaha uu aanu il naxariisad dhaqdhaqaaqaasi ku eegin waxa kamid ah dhinaca diinta oo dhaqdhaqaaqii Yurub ka bilaabmay Mareykan ka bilaabmay markii dambana soo gaaray caalamka kale markii u horeysay wuxuu noqday dhaqdhaqaaq diindiida dhaqdhaqaaq kiniisada ka soo horjeeda dhaqdhaqaaq u arkayay in kiniisadu ay raad iyo saameyn ku lahayd dib u dhicii ay sheeganaysay iyo madaalimtii ay sheeganaysay gabadha Yurub iyo qarbiga joogta marka kaalin aad iyo aad muhiim ah bay ku lahayd jimciyada qurumaha ka dhaxaysa tashriir fara badan hagtay weeyi jimciyada qurumaha ka dhaxaysa tabayaan fara badan oo caalamiya soo saartay weeyi marka qadiyada dhinaca dumarka laga hadlaayana bayaanka ugu caalamisan ilaa hadda aad iyo aad loo hadal hayaan waa ka soo baxay 1979 ee jimciyada qurumaha ka dhaxaysa ay soo saartay ee golaha loo dhanyahay uu ansixiyay oo loo yaqaano ahdi qarameedka tirtirida nooc kasta oo takoorka dumarka kamida marka 1979 bay ahayd marka jimciyada qurumaha ka dhaxaysa kaalin muhiim jiddan ayay ku lahayd waxaana ka qaadatay muxuu ahaa qadiyadaasi buubuuni fara badan bay samaysay lajaan bay u samaysay lajnad baa loo